Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada shabakadeenan kadiya group oo aad ugu barateen casharro ku saabsan cilmigan IT-ga ama kombiyuutarka iyo internetka. Maanta casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay sidee ayaynu Windows-keena u active garayn karnaa inaga oo isticmaalayna Microsoft tool oo Windows-ka inoo active garaynaya. Windows 10 oo kaliya maaha waa every Windows, laakiin inagu waxaanu baranaynaa qaabka Windows 10 loo active gareeyo ama active looga dhigo oo aanu ka dhicin Windows-ku. Haddii aad muddo isticmaasho internetka aad gasho, waxa dhici doonta inuu kombiyuutarkaaga ay ogaato inuu shirkadu ay ogaato inuu koobi yahay. Koobi ha noqdo update bay ku soo diraysaa. Update markay ku soo dirto waxay ogaanaysaa inay kombiyuutarkaaga Windows-ka ku jira uu yahay mid aan active ahayn. Kadib way ka xidhaysaa oo waxaad ku garanaysaa inay xidhay desktop-kan ayaad odhanaysaa picture dhig ama sawir. Kadib desktop-kii intuu sawirku iska qaado ayuu madow ka dhigaya, madow halkaa u eeg, halka taskbar-ka loo yaqaano madow ah. Haddaba casharkeenan ayaynu gudagelaynaa. Waxaad soo furaysaa browser-kaaga. Horta intaynaan casharka gudagelin waxaan idin tusayaa qaabka aad u soo download garayn kartid software-ka loogu active gareeyo oo ah Windows tool oo shirkadda Microsoft ay soo saartay. Browser-kaaga gal, kadib waxaad ku qortaa halkaa kediya group.blogspot.com kadibna enter dheh. Markuu sidaa kuugu soo baxo waxaad tegi doontaa halkaa download ay ku qorantay, kadibna waxaad ka tegi doontaa qaybta ay Windows ku qorantay ama menu-ga ay Windows ku qorantay. Waxaad ka soo download garaysan kartaa linkiga aan ku dhigay fiidiyowga description-kiisa ama qaybtiisa hoose ee fiidiyowga. Kadibna halkan ayaad next ku odhanaysaa. Waxaa ku jira software badan oo wata karaagooda oo si fudud aad uga soo download garaysan kartid. Kadibna next baad sii odhan doontaa Windows-ku active-ku waa kan ugu sarreeya, waa ka halkan kuugu qoran active Windows 10 degso. Kadib si fudud ayaad dejiso imika ugu dhufanaysaa. Aniga mar hore ayaan download garaystay. Waxa uu inoo yaalaa desktop-ka. Waxaan tegi doonaa desktop-ka si aan ugu shubno. Horta intaynaan ku shubno waxaan eegaynaa inuu kombiyuutarkeenu active yahay iyo in kale. Waxaan soo kicin doonaa control panel-ka. Markaan soo kicino system security baan ka tegaynaa, kadibna system. Halkan waxaa ku qoran Windows is not active. Programka aynu soo kicinaa yes baynu odhanaynaa. Kadibna programka markuu saa kuugu soo kaco Windows baad ku dhufanaysaa calaamadda Windows. Kadibna waxaad ku dhufanaysaa product key. Markaad ku dhufato halkan ayaad tigta saaraysaa. Kadib halkan waxaad ka dooranaysaa Windows 10. Halkan waxaad gelin doontaa keyga aan ku dhigay programka dhexdiisa oo ah notepad. Ayaad halkan copy inta soo tiraahdo ku paste garayn doontaa product keyga. Markaad ku paste garayso anigu imika waan qorayaa. Markaad ku paste garayso aniga qoray, waxaad ku dhufan doontaa halkaa ay ku qorantay install. Waad install garaynaysaa. Halkan wuxuu kuugu soo qoray product key installation successful. Kadib halkan waxaad tegi doontaa activation active baad ku dhufan doontaa. Waxoogaan iska yara sugno, waqti qaadan mayso laakiinse
hoos haddaan u tago halkan wuxuu kuugu soo qoray successful ama productkii successful control panel haddaan ku noqdo halkan waxaan ku aragnaa Windows is activated waa la active gareeyay casharkeenu intan ayuu ku ekaa in yar oo iska kooban bay oo ardayda aan ugu talagalay casharkan cashar la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa assalaamu calaykum waraxmatullaah